kusoo dhawaada barnaamijkeena qurba joogta Soomaaliyeed maxaad qabsateen oo maanta aan kusoo booqanay inaan Soomaali ah oo degan magaalada Den Haag wadanka Netherland wiilku waxa la yiraahdaa Umar Muye oo ah nin Soomaali ah oo ku hormaray farsamadaha boorsooyinka sida boorsadaha dumarka kuwa telefoonada la gashto oo waliba ku jira safka ugu horeeya ee Europa Muye waa inan ku dhashay magaalada Muqdisho wuxuuna Muqdisho ka soo tagay 95kii oo ku yimid wadanka Netherland kadib wuxuu waxbarashadiisa ka bilaabay wadanka Netherland dugsiga dhexe ee Saraba oo halkan uu ku dhameystay waxaan leenahay Umar Muye kusoo dhawaa telefishinkeena Royal TV kusoo dhawaa ما سنتي Umar Muye goormaad dhalatay waxaa dhashtay sagaashan sideetan iyo lix halkee ku dhalatay Soomaali Muqdisho Muqdisho ku dhalatay in dagaalada kadib sanadkee aad soo qaxdeen sanadka sagaashan iyo shan in Netherland goormaad timaadeen sagaashan iyo shan Almaan 95 Netherland timaadeen in Netherland markaad timaadeen aad qaxootinimo aad weydiisteen wadanka Netherland in muxuu ahaa talaabada aad bilowdeen adoo waxaan u maleynayaa buugaagta jir ahayd markaan wadankan imaanays kaas wax ma ka jira sagaashan jir sagaal sano jir ma dadaan arkay oo dhahay 18 jir buu ahaa buugaagta waxay dad qoray waxaa shaqaraana si bilaawd ha 8 jir baad sagaal jir baad wadankan ka imaanays iskoolka halkeed ka bilaawd ma ka bilaawd dugsiga hoose ka bilaawd kadib dugsiga dhexe ka shay kadib in markaad soo dhameysay iskoolka إن نقول بحولية إنه سمي تخصص ما حد تخصص قاوها عمر أمي وحونا دمي لبضا كن طلبضا كدي بوحونا آد وجعل فرسمها قاعد تأثير بورسوين كفاشيون كا عمر مي هاد كان أكيد وضع النذرلاند أما أوروبا aad baad caan ugu tahay Mareykanka iyo meel walba ahaato sid ugu fiirtay barnaamijkan naajixa ah oo nin Soomaali ah oo qaxooti ah wadanka yimid oo heerkan sare ka gaaray wadanka Netherland iyo Europa miisheegta saad oo sameeyay waxa iskoolka markaas wixii jeclaa dhanaad jeclaa markaas iskoolka iskoolka markii dhameeyay markaas wax si fikri wax shaqareena wax fiican aan soo biyaaro markaas waalidiyaasha iyo walaalay ala tasti إبل محاسوب جرين أنا إيك إبل شخرانا سوب جرين عبي كوا سوب ناي هورتي در عقاريسي مكاز واستشني أنا ماسي فكري وحيا سيقات marka waxa leedahay aabahaadii hooyada aabaha ka wasmayn jiray kabaha Soomaalida oo sida loo yaqaan kaba baraabaha indhihi jiray Soomaali wixii ideeyada ka qaadatay marka meesha ka sii laabo qaadatay way farsamadahan oo hidaheena dhaqanka ah Soomaaliyeed inaad sii hormariso wadamada Europa iyo Mareykanka adduunkana in laga kasoo waxaan Soomaali samayso sidaas ku fikir aniga ma sii wari si Soomaali soo binaa si fikir marka waxa dhahay in si dadka oo Europe sab jeceliin marka design-ka si Europe تعملها صوبي dadkan waa si jeclaan sidaas waxaan ku sameeyay إن عمر مويه وأنا الصومالي أو وحو هالك يمد كحوتني مو وضعك ويديستيشن إسقاشكي وحو إسكول كقبل أبي دوكسي كهوسي إلا سرق وكل بس وحو هالك آد فرسمدي سوقه هربني ما دام أو نير أو مسكح في عن وحنا آد وتعيد جرين وجعلان شري يدها دخل كالصوماليات وحنا لا تشتي فرسمدها أما هرك أو هالك أنت وتاجي هي أبيه سئي هويديسا kadib markii ay u sharaxeen hidaheena iyo dhaqanka wuxuu yahay sida boorsooyinka maqaarka loo sameeyo kabaha iyo wax walba oo maqaarka ku saabsan kadib ayuu meesha ka soo tilaabo qaaday wuxuuna haatan kamid yahay dadka ugu horeeya safka hore wadanka Yurub iyo Mareykanka dhinaca boorsooyinka maqaarada iyo wax walba oo ku saabsan maqaarka oo dumarka ama ragaba u qaatay muye talaabada labaad qaaday wadankan maxaad ka haysaa Soomaali badan ma shaqsiisay dad badan ma shaqo gelisay sidoo maxaad samaysaa waxa inta waxa bilaabna ma qof leh markaas shaqar waasi socor hada 20 qof inta ku shaqeynooyin sanad damban wixii arkoonina 40 qof ku shaqeynooyin waxa odayaas soo brin waasi weenaanooyin wixii fikro mar ina wadanka Soomaaliya uu naqro waxa wax fiican ku soo bino dadka xageena si caawin karno si inta aman ku sii soo bino
dad Soomaali baran halka subisaan xagana dad Soomaali baran shaqar waa baran iyo shaqar saas waa soo caraalan saas la suka caawiyo wixii inaad stage yani hal inaad kor u sii qaado tartiib inaad sii kornaa rabno shaqaale badan Soomaaliya baa ku shaqeeyaan dhalinyaro Soomaali dad badan shaqaasiis saamaqlay in dukaan ama wax meel warshadiina hadda aan dhex joogin aad bay u weyn tahay dad badan baa ka shaqeeya ajaanib ama Soomaali badan baan arkaa iyo ajaanib badan in dukaan aad Rotterdam ku leedahay Soomaa waxa inta boorshaas inta ku suubneena dukaankana wax waay Rotterdam saddex dhabax waay xaga kulli wixii inta ku suubneena xaga ku sii gareena halkaas waa sawir baan ka qaadi doonaa in shirkadaha waaweyn contact ama xiriir ma la leedahay shirkadaha waaweyn oo heerka sare shirkad weyn wax like KLM boorshaala suubna iyo Schiphol airport iyo Amsterdam airport ka wada Amsterdam airport iyo Samsung waa suubna shirkadda Samsung waa telefoonada boorsooyin telefoonada ma samaysaa wala geliyo boorsooyinkaas samaysaa shirkadda Samsung iPhone iyo BlackBerry iyo wasiiryaas laptop boorshaal laptop waa suubna wasiirada halkan wasiirka iyo waxa dadka banaanka tahay Clinton Hillary Clinton ta boorsha waa suubna iyo inta boqorada Maxima ta boorsha waa suubna Maxima oo samaysa boqorada halkan iyo Hillary Clinton hatta oo samaysa oo ayada hadiya ama leen ama yar waxa government oo Den Haag ayra alxablasi hadiya aan Den Haag waa ninka xukuma waa aniga dalbadama in muy waxaan samaysay wax cajiib oo aan Soomaali ku xoog sameeyay halka ka sameeyay waa dib badan tan soo sameeyay laakiin ma ku tala jirtaa wadankii hadda waa fiicnaaday 21 sano wax ku jirnay hiriirig waxa iyo buuq iyo dagaalo aad u xun waxyaalo fool xun baa soo marnay ma ku tala jirtaa inaad ku sii hormariso wadankaaga inaad warshada sidaan oo kale oo dhalinyartu ay faa'iideystaan yani waxaad taqaanid in horumar ay ku sii sameeyo wadanka ama uu ku sii horumaro ma ku tala jirtaa inaad samaysid warshad sidaan oo kale oo aad weyn iyo dukaaman waxa hadda halkan ka samaysay inaad wadankaaga hooyo ka samaysid hadii wadankiisa tartiibtii naqr dagaagtiisa dago qofkas waa rabaana wadankiisa ku naqro yani waa ku tala jirtaa ma inaad yani wadankaaga kan oo kale inaad ku samaysid shirkadahan waaweyn oo meesha ku samaysid hadda waxaan sii gelaynaa warshada oo dadka ay ku sameeyaan boorsooyinkooda waxooda diseeyana halkan ay waaye meesha oo lagu sameeyo boorsooyinka iyo waxa oo Cumar Muuya oo caan ku yahay dadkan inta halkay maabarta war kam muxuu yahay كم عوبان جن أوقات محوية كم حالو استعمالها يا ديدا كريدت كا اي دي دا اي دي أخونسي يو قرار كبنجي يو بيزنس يا محل كيف ساسو كم والله قشطة أسوأ سوبسن كوامع أسوأ سميسن سيدان حلا أسوأ markaas waxaan dhan dad ayaa iskale order loo sameeyay order ma waxaan ku shaqeynaa by order and order ayaa wax ka gadaan horta ordooyinka waxa waaye waxaan haynaa customer badanaa dadka Hollandees ayaa aad wax u iibsadaan dadka wadanka markaas dadkana way kala yihiin dada jiro oo lowest middle badanaa dadka wax naga iibsa dadka oo shaqooyinka aad u fiican haya dawladda ka shaqeeya looyarada doctorooyinka iyo fanaaniinta iyo wasiirooyinka dhan oo maxaa la ka shaqeeya alaabtan way isticmaalaan
meeshaasaan ku arkayaa musawirada Dino iyo dad badan oo telefishinada Netherland oo caan ka ah ayagana iyo KLM arkay boorsa ay tustay KLM oo boorsooyinka u samaysan KLM ku yahay boorsadan ma KLM aku qoran sidaad u jeedaan KLM kan ma hostes ba u samayseen mise KLM maxay kartaa ama magaciisa arkan horta boorsooyinka waxa way oo dhow sidaan ku sheegay way markaas KLM ayaa naga dalbatay waxaa jiray maxaa goodka laga sameeyay waa goodka oo dadka ay gashanayaan dadka shaqaalaha KLM-ka ayaan ka codsanay ay soo shiidaan oo boorsa inaan ku sameeyo dadka oo qadiimka ay wateen buluuga markaas waa soo shiidin recycle hadda waqtiga xaadirkan waxa waaye waxa badan waxyaalaha recycle meel looma hayo markaas waxaan ka soo saarna wax dhinti wax nool ayaan ka soo saarnay waa la sameeyaa wixii la daadiya wax ka dhigtay waxaan ka dhigay markaas waxaan anaga malin waa u sameynin KLM-ka ayaan u sameynin anagana mana gedi karno ayaga ayaa iskale KLM khaas aan ayaga loo sameeyo waxaad ka heli kartaa diyaarada markaa korto ama airportka markaa tagto ayaad ka heli kartaa haddii aan ocean ama hostes sidan maya kan hadiida ma aha boorsadan waxaa loo sameeyey Cumar Munye inuu ku caawiyo dadka caalamka ku nool oo dhibaatada Afrika caalamka oo dhan ayaa maxaa lagu caawiyaa Soomaali ma jiraan laakiin dadku lagu caawinayo dhamaantood way gaaraysaa lacagta UNICEF ayaa iskale in Afrika loo sameeyo qofkii iibsado ayaa maxaa lacagta nuskeeda waxay aadaysaa UNICEF dadka oo Afrika ku saacidaysan oo qaxootiga kaas ayaa loo sameeyay banaankana kuma helayso ilaa kilo waxaad ku helaysaa website-ka KLM dhinaca KLM ka dalban website okay kan waa u jeedna waxaan meelahan u jeednaa boorsooyin kale kan waxaan u malaynayaa laptop waxyaalaha loo isticmaalaa kan waxa waaye sidaan in sheegay maxaa dadka businessmen iyo dadka wasiirooyinka boorsooyin ayaa u sameynaa markaas boorsooyinka badan alaabteen waxaa iibsado dad oo waxyar lacagta hayso runtii dadka oo businesska ay ku shaqeeyaan sababtoo ah nasiib wanaagsan waxaa fursad na soo martay dad alaabteena wax iibsado dad tijaariinta dadka faanaaniinta ay aad u xiiseeyaan meeqa camal gadiin kan boorsadan qof walba waxaan ku qaadanaa order qofku uu imaanaya dalbaadkiisa ayuu sameynaa markuu sameeyo waxaan ugu sameynaa 750 xabadii waxaa jiriba waxaan rabnaa inaan faracyada aan ka bilaano Europa farciina labaad Sweden baa inaad ka bilaabi doontaan mar dhow qofka aad mas-uulka aga dhigteen ma ajnabi ba mise waa dhalinyarteena Soomaaliyeed ayuu yahay ninka aad ma faracaas aad u dhiibi doontaan insha Allah ninka oo walaalkeena u dhiibi doono waa nin walaalkeena oo Soomaaliyeed nin oo kalsoon aad lagu qabo mar walba waa nala soo xiriira wuuna imaadan wixii aan xag an ka sameey lahayn wuuna la kaashada haddana wuxuu u diyaar garooday inuu keeno shaqaal oo tababar inta laga siiyo oo Sweden la geeyo ninkaas ma kula jooga halkan wuu ila jooga magaciisa Maxamed Saciid inta muu degan ama Sweden uu degan ninkan Swedish way Somali Swedish السلام عليكم haatan waxaa noo yimid Maxamed Saciid oo ah faraca labaad ee Cumar Munye oo ka furi doona wadanka Sweden ku soo dhawaada telefishinkeena Royal TV ee sanadka 2013 soo dhaweynteeda oo barnaamijka aan ku soo qaadanayno dhalinyarada Soomaaliyeed qurbo joogtooy maxaad qabsatay Maxamed Saciid soo dhawaada baan ku leenahay والله ما سنتها كمان ودوهاي بسم الله الرحمن الرحيم وحا هرت إله بمحد إسكالة اسكو كايا كان هولن وحان هولن أني مع السماد ولا لها النوف فدية محموي عمر موية وحان وقت بدن بحيرنا قد حيسي أنا ودن كسويدن بحان كودا شركة كلها هاي ولا له ديرجلين ديرجليان بان شركة عصب هذا سمينا هي هو ام سعيد اللي هذا هلك ما سويدن متكل شركة كلام كلها ثيم او بيلده معناه هذا هاي هرمر وحبرشو مستقبل وحلها ثيم او بمركي انجليش انا كوشاغو success
maxaa waana ah soo dir u dir lahayd ama aad dhihi lahayd dadka Soomaaliyeed walaal waxaan u diri lahaa dadaalaa gaara haddii dadku qofka bini aadamka ah ra'yi walba uu hayo isaga ayay ku xiran tahay ama iyaday ku xiran tahay inuu dadaalo oo horumarkii isaga unbay ku xiran tahay qof gadaal u reebaya ma jirto inuu isaga isku reebo maahane waxaan ku waanin lahaa horta waxbarashada qof aqoon waa iftiin qof aan aqoon lahayn wax uma qabsan karo shaqadana caafimaad baa laga qaadaa oo qofkii shaqaysta horumar buu gaarayaa hadda waa kanaayo tusaalihii baa idin ag jooga marka taas way taan ku dhiirigelinayo inay dadaalaan oo ay dhulka iska qaadaan in Soomaali badan baa u qaato 20 sano wadanka dagaal uu ku jiro Soomaali badan baa u qaadata inay wadanka loo naqanayaan Soomaali waa mashaqaystay ama hadhaxan qaad ama hadhaxan wax maraba inay qabsadaan in Soomaalida adduunka ama qurbaha maxaad aad ugu celcelinayd adhihi lahayd horta taas waxaan leeyahay waxa kama jiraan haddaad dhinac walba fiiriso Soomaalida horumar bay ka gaartay waxa ugu badan waxay tahay dadka Holland dad badan baa ka tagay Sweden dad badan baa ka tagay Mareykan dad badan ka tagay haddaan fiirin Africa Kenya isli waxa dhisay waa Soomaali weey South Africa maanta waxa gacanta ku hay waa Soomaali horumarka ay sameeyeen meelaha ay furteen waxa waa wax lagu faano oo lagu farxi karo weey waxa jiray wadankii Sweden waxa nin la yiraahdo professor ah buu ka qoray wuxuu horumarka ayuu taabtay ay Soomaalida hayaan ama Ingiriiska noqoto ama Mareykanka noqoto markuu wuxuu yiri dhibka waxay tahay wadanka ay joogaan Sweden maadaama aan fursad isku aragnaa umaleena siisata waa maasantahay Maxamed Saciid halkan waxaan ku soo koobinaa barnaamijkeena qurbo joogto maxaad qabsatay waan badanta Maxamed Saciid sanad wanaagsan Maxamed sidoo kale barnaamijkeena qurbo joogto maxaad qabsatay halkaas ayaan ku soo koobinaa barnaamijka 2013 waxaan leenahay sanad wanaagsan Ilaahi hanoo dhigo Soomaali meeshii joogto waxaan halkan ka salaaminaa waa wariyaalkeena meel walba ay ka howlgalaan Royal TV iyo Soomaali meel walba ha joogto Royal 24 TV كمال الدين عنترناتشي هولند